hay'adda dhowrista iyo tayada Jamhuuriyadda Somaliland ayaa u soo xidhay tababar qaar ka mid ah shaqaalaha hay'addaasi. Tababarkaasi oo muddo 3 cisho uga socday magaalada Hargeysa. Ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay Commissioner Cali Sheekh Maxamed Cali waxaana ka mid ah hadaladiisii. runtii seminar aad qiimo badan buu ahaa waxyaalaha uu ka hadlayay iyo waqtiga uu socday durationku wuxuu ahaa 4 maalmood waxyaalaha ugu muhiimsan uu ka hadlay wuxuu ahaa monitoring and evaluation waxa weeye waa subject aad u qiimo badan oo shaqada looga baahan yahay waliba waxa muhiimadiisu tahay in la ogaado shaqada socota ama hawsha socota si isugu xidhan tahay iyo qaabka ay shaqadu u socoto marka waxa weeyaan arrin aad u muhiim ah weeyaan waxay la tahay hay'adan tayadu waxay muhiimadeeda ugu weyn waxa weeyaan waxa lagu aaminay waxyaalihii ugu muhiimsanaa qofka bini'aadamka lagu aamin lahaa waa bini'aadam wixii uu quudan lahaa marka in mar walba cilmi kororsi la sameeyo oo sare loo qaado aqoonta waa muhiim waxyaalaha بالمثل شغالها كلا قبطان وحلا جايبها نينك كسم كجوجا إنه وقبطان يتهاي وح كوانت تيو ده وحوي وحلا تيرينيو لكن شيء مركا كوارا تيليرا وحوي شيء وشيء ما يهي إسلام مركا معاه هذا يسقى الله سعلا وارنا هذا على سويان أو لبعض الرماد ومركا له باهي ولا جمال ما نقولي قلب وحنا لقوه يجو يقف قلب كأديك سن قران يقعنا وحن وأقولوا له مركا runtii waxaan aad ugu hambalyeynaya baryahan dambe hay'adda mimanteeda ama socodkeeda iyo howlgalkeeda inuu aad u sareeyo marka labaadna in shaqaalaha maalintii dhow markay qaadanayeen seminaarka waan la joogay waan la yaabanaa seminaarku aad buu heerkiisu u sareeyay waxaan islaamalaha qaarkood mala way ka dhacsan yihiin laakiin runtii aad baan u gawaabinaya waxa ii muuqday su'aalihii la weydiinayaan ka arkay inay ka wada jawaabeen oo aad ula socdeen arrintaasna waxa ay muuqatay inay yihiin shaqaale tayadii la doonayay leh iyaguna waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah shaqaalaha hay'addaasi ee tababarkaasi qaadanayay kulay waxaan oran karaa waxyaabo fara badan baa laga faa'iiday kulay shakhsiyan wax badan oo aan aqoon baan ka faa'iiday marka kulay wixii ugu faa'iidada badnaa waxay ahaayeen si yani project aad u dhameystiri karto oo aan u dabagali karto percentage ka faa'iidadii khasaaraha u ogaan karto aad mashruuc dhan aad wada fulin karto dhamaantii kulay tababar baan halkan ku qaadanay waro waqtigiisu gaabnaa isla markaana uu ahaa wax aad inoogu muhiim ah institution ahaan marka la inoo eegayna waa waxyaabaha ugu muhiimsan ama adduunyada marka maanta loo eegayo waa shayada ugu muhiimsan amaniga marka la eegayo ee lagu shaqaysto soo kale waxaan leeyahay qofka u baahan inuu halkan wax kaga cuno inuu meel kale wax kaga cuno waa shay aad u muhiim ah baa la inoo soo jeediyay 100% oo aynu qaadanay tababarkiisa marka inaynu weelayno aad bay muhiim u tahay ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhowrista iyo tayada Jamhuuriyadda Somaliland Xamse Cabdi Ibrahim ayaa isaguna halkaasi ka hadlay runtii tababarkanu sida ay sheegeen xubnaha iga horeeyay wuxuu ahaa tababar ama capacity building khuseeya shaqadan la yiraahdo dabagalka iyo qiimeynta shaqada afka kalena lagu yiraahdo monitoring and evaluation runtii tababarkaas de nuxurkii iyo ujeedadii iyo qiimihii uu lahaaba tababarihii ama coachkii casharka siinayay oo aan maanta inala joogin waynu uga mahadnaqaynaa inuu tababarkaasi qiimeysay aad iyo aad u heer sareysa oo soo diyaariyay warkasaan ku helayna shaqaalaheena iyo dadkii intii ka qayb gashay si aad iyo aad u qiimo badan ayaa uga faa'iideysateen waan ka mahadnaqaynaa runtii sida aad u diyaarsaneedeen ee maartii uga faa'iideysateen tababarka iyo nuxurkii u daaranaa guud ahaan tababaradu iyo aqoon suudaarsigu waa waxa qofka dhisa weeye cilmiga iyo inuu qofku wax kororsadaana runtii kuma xidhno kaliya course yaro ama macallin yar ku siiyo ama tababar ku siiyo aqoonta waxa ugu wanaagsan aqoonta qofku wax isbaro baxsiga uu sameeyo inuu ka hay'adahaana waxay nahay meelaha la tuhmayo runtii ana shaqaalaheena iyo dadka halkan inoo jooga runtii waa dad aad iyo aad xirfadooda u sareysan intaan ognahay ama background-kooda CVs-kooda
in aynu maaragtay aqoon ahaan inagu tayeysnaano mar haddii aynu nahay hay'adii tayada oo wax aad iyo aad runtii u muhiima. Maxamed Wardi, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Hargeysa.